faahinta wararkaas aanu kor idinku soo sheegnay. Faadmo macalin Abuukar ayaa diyaar noola maanta. Faadmo. mahadsanid Cabdiraxmaan. qorayaasha iyo siyaasiyiinta caalamka ayaa cambaareeyay weerarkii tuureyda loo adeegsaday ee shalay loo geystay qoraaga Salmaan Rushdie oo haatan isagoo qaba dhaawacyo daran uu ku xiran yahay qalabka neefta. waxa ay sheegeen in arintan ay tacadi ku tahay xorriyatul qowlka. hogaamiyaasha Britain iyo Faransiiska ayaa sheegay in Rushdie loo beegsaday sababo la xiriira xaqa uu leeyahay inuu hadlo. booliiska ayaa ninka weerarka geystay ku sheegay Hadi Matar oo kasoo jeeda gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka. ciidamada Taliban ee ku sugan caasimadda Kabul ee dalka Afghanistan ayaa rasaas kor u riday si ay markaas u kala ceeriyaan haween dibadbaxayay oo dalbanaya xuquuqdooda. qaarkood ayaa markaasi waxa ay dalbanayeen in xuquuqdooda ay markaasi helaan. haweenkan ayaa waxa ay ahaayeen 40 jawigana sidan ayuu ahaa. madaxweynihii ugu horeeyay garabka bidix ee dalka Colombia Gustavo Petro ayaa isbedel ku sameeyay taliyayaasha militariga iyo booliiska dalkaasi wax ka yar toddobaad markii uu xilka la wareegay. waxa uu sheegay in xulashadiisa uu ku saleeyay musuqmaasuq la'aan iyo inaanan lagu xadgudbin xuquuqda asaasiga ah. ku dhawaad 150,000 oo shaqaalaha beeraha caleenta ka shaqeeya dalka Bangladesh ayaa shaqo joojin sameeyay iyagoo dalbanaya in loo kordhiyo mushaharka oo ay sheegeen inuusan noloshooda ku filnayn. arrintan waxa ay daba socotaa kadib 4 maalmood oo ay saacado sameeyeen shaqo joojin. dadka Kenyaanka ah ayaa u muuqda kuwo dulqaadku ka sii dhamaanaya iyagoo 4 maalmood sugaya tirinta waa natiijada doorashada guud ee dalka. guddiga doorashooyinka ayaa qirtay in tirinta codadka ay gaabis tahay. maalintii codbixinta ayaa ahayd maalin nabdoon balse doorashooyinkii hore qaarkood ayaa waxaa hareeyay isku dhacyo oo dhiig ku daatay kadib muran ka dhashay doorashada. ugu dambeyn dagaalo hor leh ayaa laga soo sheegayaa bariga iyo koonfurta Ukraine iyo madaafiic lagu garaacayo qaybo kale oo dalkaasi ka mid ah. ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay iska caabiyeen weeraro dhowr ah oo Ruushku ku qaaday gobolada Donetsk iyo Kherson. warkii caalamkana waa inaga inta Cabdiraxmaan. aad bay mahadsantahay Faadmo macalin Abuukar oo la socodsiinaysa wararka caalamka BBC ee dhageystayaal u diyaar garoobay idaacaddeena duhurnimo oo faahfaahsan. aan ku bilaabay waxa dalka Kenya ka socota tirinta codadka doorashada madaxweynaha iyadoo si weyn ay soo hayaan madaxweyne ku-xigeenka William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkan Raila Odinga. guddiga doorashada oo haysta ilaa Isniinta si ay ugu dambeyn ugu dhawaaqaan natiijada rasmiga ah ayaa ku howlan xaqiijinta foomamka kala duwan ee codbixinta. wariyaha BBC-da Cabdifataax Cagayare ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Kenya. bilow guddiga doorashooyinka ee waddankan Kenya ee lagu magacaabo IEBC ayaa ilaa haatan waxay shaaciyeen natiijada kama dambaysta 56 deegaan doorasho oo kamid ah 290 deegaan doorasho ee waddanka 290 oo gudaha Kenya halna waxay ugu talagaleen in ay codkooda ku dhigtaan dadka qurba joogga ah. guddigu waxay sheegeen in arrintaas ay soo gaareen 290 deegaan doorashada warqadihii codbixinta oo ay baarayaan kadibna markay xaqiijiyaan ay shaacin doonaan. dhanka kale guddigu waxa uu sheegay in uu maqan yahay oo meel uu ciribiga jaandhigay aan la garanayn mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysay deegaanka Embakasi East halkaas oo ilaa iyo khamiiskaasi lagu laayay shaqadiisii waxaa wada ku-xigeenkiisa. dhanka kale Dhimbilow doorashadan waxaa natiijo wanaagsan ka soo baxday oo helay haweenka oo ilaa iyo 7 barasaab ku guulaystay kuwaas oo ka mid ah 47 barasaab ee dalkan uu leeyahay kuwaas oo natiijooyinkooda haatan lagu dhawaaqayo. waxaa lagu dhawaaqay natiijooyinka barasaabyada kuwa senatarada kuwa haweenka ugaarka xildhibaanada caadiga iyo weliba kuwa kale ee deegaanada golaha deegaanada ee kala gedisan. laakiin weli waxaa laga dhigsugayaa midda madaxtinimada oo labada musharax ee ugu sarreeya William Ruto iyo Raila Odinga ay aad isugu dhow yihiin. hase yeeshee maalmaha soo aadan iyo saacadaha soo aadan ayaynu filaynaa in
guddiga doorashooyinku ay si rasmi ugu dhawaaqaan natiijada kama dambaysta. aad buu mahadsan yahay cabdifataax cadeero xogta ugu dambeysayna siinaya dhegeystayaal. natiijada kama dambaysta kolka lagu dhawaaqo waxaad kala socon doontaan waaxaha kala duwan ee BBC ay ka samaysay wartabinta hadday tahay qaybta online-ka idaacadda iyo telefishinkaba. dhanka kale waxaa jira dad dalxiisayaal ah oo iyagu ku sugan goobaha loo dalxiis tago kuwaas oo si weyn uga walaacsan waxa ay doorashadu ku dambayn doonto. waxaa dadkaasi ka mid ah dad Soomaali ah oo dalalka Yurub iyo Mareykanka dalxiis ahaan uga yimid kuna sugan gobolka xeebta ee Mombasa. waxaa la kulmay wariyaha BBC Cabdifataax Ibraahim Cagayare oo halkaasi ku sugan. aniga waxa la yidhaha magacayga Saacid Maxamed Daahir waa beri waxaan ka yimid waddanka Austria gaar ahaan magaalada Salzburg. haddana waxaan ku suganahay Mombasa. waxaa ka soo doontay dalxiis iyo vacation reerkan keenay. haddana doorashadii baan la kowsano halkan ka dhacas. waa ku weydiin doonaa doorashada iyo qaabka u aragtay aan dhinaca kale u wareego. magacaaga walaaliyo meesha ka timid? Maxamed Faarax Cabdullaahi waxaan ka imaaday Mareykanka magaalada Columbus gobolka Ohio. halkan maxaa ka soo raasay adiga? waxaan u imaaday inaan soo booqdo qoyskayga waalidiintayda dalxiis sidoo kalena waa u imaaday. marka adigu waad ogeydin halkan ay doorasho ka dhacayso? waan ogaanay doorasho ka dhacayso. Saacid adiga ma ogeydin inay doorasho dhacayso? niyo may anaga fasax bas waan u nimid. kii waan ogeyn doorasho inay ka dhacayso laakiin xilligan inay dhacayso ma ogeyn. marka hadda aan la kulannay doorashadii oo dhacaysa. marka Mombasa timid doorashadii oo dhacaysa aragtay maxaa dareemay? waxaan dareemay doorashada maalmaha bilaabanaysay shucuurta iyo dadka say u kacsan tahay iyo meelaha la xirxirayo iyo magaalada adeega iyo waxaas aad baan u dareennay. marka doorashadii markay dhacaysay waa arkaynay farqiga meeshan ka nimid iyo doorashadan u dhaxeeya halkan. waxaan dareemayaa marka in doorashadu hadda ay weli socoto xoogaa cabsi ay jirto. doorashada kadib maxaa dhici doono dadka ay aad u cabsanayaan laakiin ilaa hadda wax major issue may dhicino si nabad ay ku socotaa waxyaalo yar marka laga reebo. marnaan yadad ku soo dhacday walaalkan maxaa u timid? niyahow cabsi baan dareemay markii doorashadu bilaabanayso dadku waxay lahaayeen wax badan baa dhacaya marka marmar inaan laabano degdeg u laabano baan xataa damacnay laakiinse weli ilaa hadda wax weyn ma dhicin. aan ku laabsan markan Maxamed Faarax. maxamedow adiga waad ogeyd in doorasho ay dhacaysay. sidee go'aankan ku gaartay in halkan ku timaadid xilli ay doorasho dhacaysay? markaan tigidhka goosanayo koob Mareykan wiil walaalkay oo calal dhahay aan la tashtay wuxuu dhahay doorashada ka bacdi imaan kartaa markaan waxay fasaxayga muddo kooban ah haystaa marka waa inaan ku imaadaa doorashadana ilaahay aan tawakkalay aan ku yaray. ilaa hadda wax dhacay ma jiraan? ilaa hadda wax dhacay ma jiraan waa nabad laakiin in wax cabsi un baa jirto markii lagu dhawaaqo in dadka ay cabsanayaan magaalada kala xiran tahay ayaa jirto. maalintii talaadada doorashada intaas wax meel furan ma lahan meelaha dhan waa xiran yihiin dadku un baa cabsanayo ganacsatada ma furno meelahan kafeega u tagi jirnay ama aan ku soo dalxiisi jirnay dhan waa xiran yihiin. Saacid waa beriyow adiga dabcan maxamed uu ka duwan yahay oo qoyskii halkan degan culays badan ma haysto marka arrintaas sidee ku saameysay? niyahow aad bay annaga noo saamaysay waayo waqtiguna wuu nagu yaraa. waxaan doonay waqtigana si fiican uga faa'iidaysano marka meelihii aan tagtagi lahayn oo dhan oo noo qorshaysnaa ma furna gurigaan iska joognaa. carruurta kale ay la socoto meelo aan hadda ka horgeeyey doorashadii intaysan bilaaban ka hor hadda waxay leeyihiin mar walba nagee oo anna waxaan ku yidhi meelihii waa xiran yihiin. waxaa kaloo jirta cabsi ah inay laga yaabo in wax dhacaan oo xataa ay sii daba dheeraato inay sii xirnaato. carruurtu marka ma soo baxaan miyaa? maya cabsi baa jirta marka lama soo baxo carruurtu ma soo baxdo guriga kama soo baxdo. marka adiga keligun baa iska wareegay haat? aniga keligun baa maalintii iska warwareego adeegii waxaas waan u soo baxbaxnaa. xataa waqtiyaashii meelaha la furi jiray badanaa lama furo way ka dib dhacaan. maxamed faarax ku laabtay. maxamed Saacid wuxuu sheegay in halka uu ka yimid qaabkay doorashada uga dhacdo iyo halkan ay kala duwan tahay. dhinaciina Mareykanka doorashadan sida u dhacday iyo tan Mareykanka farqiga u dhaxeeya muxuu yahay? farqi weyn u dhaxeeya tan Mareykan iyo tan Kenya. ayaan rabtay doorashada talaada markay dhacaysay waxaan booqday booth ay dadka ku codeynayeen polling station. markaan booqday banaanka ay dadka ku codeynayeen annaga building gudihiisa galaysaa waxaa lagu dhigayaa kombiyuutar inta manual ahayd waraaq ayaa lagu codeynayaa waa meel banaana haddii qallaasa dhacdo boqsaash waa la qaadan karaa haddii hadduu dhaco la qaadan karaa. marka waxaan la yaabay meel banaana dadka codeynayaan dan waraaqa weeye marka aad ayay uga dambaysaa. dan annaga marka doorasho dhacdo isla habeenkii markii la xiro doorashada ka bacdi 7 PM ka bacdi 4 saac waa lagu dhawaaqaa. marmar way jirtaa ay jiidanto laakiin inta 3 biri ayaa maraysaa wal wax lagu dhawaaqana ma lahan. Saacid adigana dhanka Yurub wax badan oo farqiga u dhaxeeya tusaale ahaan